gabadhan waxay su'aasha ku bilowday inna allaha la yastaxyi min alxaqi waxay tiri waxaa iqaba nin jinni ah xilli aan ismeersanina aanan aqoonin jamaacna igu sameeya si toos ahna ayuu igu yimaadaa oo markuu rabo inuu xaajo u guto waxa iyara qabata waxaad moodo hurdo yar marka ayuu hawshiisa gutaa anna toos ayaan u dareemaa hawshiisa waqtina malahan iyo goob uu kugu simayo haddii aan suuq joogo iyo haddii aan guri joogaba waa isugu mid wuxuuna inacsiyey ninkaygii caadiga ahaa ee uu igu diray su'aasheedu waxay tahay kow sideen isaga celiyay ninkan jinka ah labo haddii uu jamaaco qubays miyaa igu waajibay ileen sidan ninkayga caadiga ah u dareemo ayaan isna u dareemayaa jinni iyo insise ma isguursan karaan بسم الله الرحمن الرحيم سؤال لو سو قري ما ان dadka lagaga qosliyo laakiin waa xaqiiqo jirta culimaduna way ka hadleen waxyaradan si kooban uga jawaabo horta way suuroobi kartaa sida culimada badani qabaan in uu jinka iyo insigu isu galmoodaan oo hadda gabadh way wax hadlaysa laakiin rag waxa jira iyaguna naaga jin ah u galmooda iyaguna way jiraan qisooyin aniga soo maray baaba ka mid oo nin rag yimid oo yiri waxaan hayst waan xaqiiqo jirta waay marka ragga jinsiga labada jinka iyo insigu horta ma isu galmoon karaan ma suurtagal ma tahay culimo badan waxay qabaan quraankayba weelaka wax ka helheleeno waxay u daliishanay aayadii quraanka fi suurati ku jirtay fi suurati ar-rahman lam yatmithunna insun qablahum wala jan dumarka waxa laga hadlayay jannada qoladan dumarkan la siiyay loogu talagalay hortood insina uma galmoonin jinnina uma galmoonin baa leeyahay meesha waxa laga fahmay inuu jinku insiga u galmoon karo culimada qaar ka mid ah waxay u dilishay qurtubi iyo waxayba ku keeneenba aayada iyadana fi suurati al-isra ku jirta wa sharikum fil amwali wal awlad athar mujahid uu ka keenay baa jiro ma qansu sugan yahay wuxuu yiri ninku markuu xaaskiisa u galmoonayo haduusan adkaarti akhriin bismillah allahumma jannibna shaytaana wa jannib shaytaana ma razaqtana haduusan akhriin shaytaanku ibtu isaga maraya buu xubinka taranka ibtiis oo isku maraya kadibna islaantii wala isticmaali buu marka wa sharikum fil amwali wal awlad tafsir tafasiirta kamid adiga way suuroobi kartaa isu galmoodka su'aasha xigta inay iskuursadaan ma suuroobi kartaa jawaabtu waa maya guur ma dhaxmari karo sax ah ilmo ma isu dhali karaan ma ka suurowda ilmo jin dhalay oo aabba jin u yahay inay hooyo insiya dhasho ayaduna waa maya ma suurowdo Soomaaliyeed laakiin galmadu way suroobi kartaa culimadu saasay leeyihiin tayib dhanka waa dhankaas dhanka labaad dambi ma ku leeyahay ruuxa noocaas jinku uu qasbanayo ama ninka naagta jintii ay qasbayso ama haweeneyda ninka muxuu ahaayay ninka jinkii uu u galmoonayo dambi ma leeyahay ruuxaas jawaabtu waxa weeyaan inta badan waa qasban yahay ruuxaas hadduu qasban yahayna dambi ma leh hadiise laakiin aadan qasbanayn oo iska celin karto laakiin shaqadan aad u bogtayba marka dambiilata
taasi waxa way ithmi iyo dambi ma ka dhalanaya marka la yiraahdo waa mas'alada xigta qabays ma waajibaya dhowr xaala loo kala qaadaya fuqahadu markay ka hadleen way ku kala aragti bedelan yihiin saayidna dhoo masaa'il horay looga hadlay waxay leeyihiin haddii uu ugu yimaado hurdo ruuxu isagoo hurda iyadoo hurdo u yimid riyo bay wax ku dhaceen wax biyo ana iskumayna arag qabays markaa waajibi maayo waa ruux qarway oo kale Soomaa ruux riyooday oo kale biyana kama iskumayna arag xaaladda labaad waxa weeyaan waa inuu ugu yimaado si life ah si toos iyadoo soo jeeda inuu ugu yimaado ruux bini aadanana isu soo ekaysiyo nin caadi iska soo dhigo xaaladda iyada ah waxay la mid tahay iyadoo ruux bini aadana u galmooday oo kale ama biyaha yimaadeen ama yeesan iimaanina way qabaysan xaalad saddexaad waa soo hadhay inuu si toos soo jeed oo life ugu yimaado laakiin aysan arkin balaayo baa ka shaqeynaysa laakiin ma aragto way dhici kartaa waa xaalad kale way laakiin way soo jeedaa xaaladda iyada haday biyo yimaadaan waa qabays hadaynan imaanin way isku khilaafsay culimo badan waxay qabaan ha qabaysato qaarna waxay leeyihiin war meesha wax la arkayo ba hawl ma qabanina biyana ma imaanin see loo qabaysana qaar baa dooda qaba mas'aladaasi marka meelahaas ay mari fuqahaduna saas siyaabaha kala gedisan bay uga hadleen ama see la isaga celin karaa waxaad u baahan tahay in aad barato qaabka shayaadiinta la isaga celiyo Soomaa afkaar farabadan quraanku soo aroortay qaabab kala gedisan xadiista nabiga ku timi sallallahu alayhi wasallam wa imma yanzaghannaka min ash-shaytaani nazghun fasta'idh billah ilaahay inaad ku cararto adkaarta markaad seexanayso markaad muxuu ahaay soo toosto xilli walba waxay leedahay adkaar shayaadiinta la isaga celiyaa jirta iyo muxuu ahaay ducooyin inaad ku waabadsato ilaahayna ku cararto tabaaraka wa taala taas ayaad isaga celin kartaa ama hadii ilaahay ka qabto tabaaraka wa taala aad muxuu ahaay kaga fayoobaan kartaa wabillahi tawfiiq